Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kormeeray Wasaaradda Maaliyadda, Bangiga Dhexe iyo Dekedda Muqdisho ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay si dardar gelinayso qorshayaasha ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo ku tagrifalka hantida iyo awoodda dowladnimo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulamo kula yeeshay madaxda iyo mas'uuliyiinta hay'adaha goobahooda shaqada isagoo ka dhageystay warbixino ku saabsan hanaanka iyo hufnaanta maaliyadeed iyo adeegyada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an dhowrista ammaanada ay u hayso shacabkeeda, waxa ayna horey u qaaday tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa oo ay ka mid ahayd in sharciga la horkeeno mas'uuliyiin dowladeed oo ku eedeysnaa xatooyo xoolo dadweyne. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa xusay inay sii xoojinayaan tallaabooyinkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay madaxda iyo howlwadeennada ilaha dhaqaalaha dalka ee uu booqday inay sii dardar geliyaan shaqadooda si kor loogu qaado dakhliga dalka oo saameyn xooggan ku yeeshay COVID-19 oo kala xiray dunida. Nasr Bashiir Cali, Warbaahinta Qaranka, magaalada Muqdisho.